13 Oktoobar 1977 safar fasax ka soo laabasho ah iyo rakaab 86 qof ah. diyaaradda Lufthansa ee Jarmalka laga leeyahay waxa ay ka soo duushay garoonka Palma de Mallorca oo Spain ah, waxa ayna ku socotay kuna wajahneyd magaalada Frankfurt ee waddanka Jarmalka. 30 daqiiqo markii ay diyaaradda hawada ku jirtay oo ay caadi u socoto ayuu jawiga hal mar isbedelay. diyaaraddii waa la afduubtay, waxaana afduubtay 4 qof oo Falastiiniyiin ah, waa 2 nin iyo 2 naag. kani waa Zuhair Yusuf Akasha oo ku magac dheer Maxamuud, waana kaabaha kooxdan afduubatay diyaaraddan. ujeedada iyo danta kooxdan wax afduubatay ayaa waxay ahayd inay taageeraan maleeshiya la dhaho ciidanka cascas oo Jarmal ah iyo maleeshiyadaas madaxdooda in laga soo daayo xabsiyada Jarmalka. diyaaradda oo ka soo bixisay Spain kuna wajahneyd Jarmalka magaalada Frankfurt ayaa laga leexiyay wadadii oo waxaa loo leexiyay Talyaaniga iyo magaalada Rome. diyaaraddii waxa ay ka soo degtay magaalada Rome ay waddanka Talyaaniga. qoladii wax afduubatay halkaas ayay ku soo bandhigeen dalabkoodii oo ahaa in maleeshiyada ciidanka cascas ee Jarmalka ah laga soo daayo xabsiyada Jarmalka. Jarmalka markaasi waxa uu u qaybsanaa 2 waddan, bari iyo galbeed. dowladda Jarmalka galbeed ayaa waxa ay Talyaaniga ka codsatay in diyaaradda sheegageeda la toogto si diyaaradda loo banjariyo kadibna rakaabka loo badbaadiyo. Talyaaniga arrinkaasi ma uusan rabin, kadibna Talyaaniga diyaaradda shidaal ayay ku shubeen, waxayna ku amreen inay garoonkooda ka duusho kana tagto Rome. kadib diyaaradda waxay soo aaday Qobrus iyo magaalo Larnaca oo si ay halkaasi shidaal uga qaadato. saacad markii ay fadhiiso diyaaradda garoonka Larnaca ee waddanka Qobrus ayaa halkaasi waxaa la keenay nin ka mid ah ururka dib u xiraynta Falastiin, kaasoo isku dayay inuu afduubayaasha ka dhadhacsiiyo inay diyaaradda iyo rakaabka fasaxaan, laakiinse hadalkiisa waa ay ka diideen. shidaal ayaa lagu shubay diyaaraddii, kadibna way ka soo kacday Qobrus. waxa ay soo aaday wadamada Carabta. waa laga diiday diyaaradda inay ka soo degato Beirut iyo Dimashq iyo Kuwait. Bahrain ayay ku soo degatay, shidaal yar ayay ka qaadatay, kadibna Dubai waa laga diiday inay ka soo degato, laakiin markii la ogaaday in diyaaradda wax shidaal ah badan aysan lahayn, aysan sii socon karin, ayaa loo ogolaaday inay Dubai ka soo degato. wasiirka difaaca ee Imaaraadka ayaa waxa uu ka codsaday afduubayaasha inay sii daayaan carruurta iyo dumarka si diyaarad kale loo saaro, laakiinse afduubayaashii ayaa sheegeen inaysan marnaba hal qof xataa aysan sii daynaynin. xaaladda aad ayay u xumeyd, waqti badanna wuu socday, rakaabkii way rajo dhigeen, aad ayayna uga baqaayeen inay dhintaan ama in xaaladda ay meel xun ay gaarto. afduubayaashii go'aankoodii ayay ku adkaysteen oo ah inaysan qofna daynaynin. sidoo kale afduubayaashu waxa ay dalbadeen shidaal iyo cunto iyo biyo iyo joornaalada maalintaas. dowladda Jarmalka galbeed iyo dowladda Imaaraadka wax kale oo wadda ah markaasi maysan hor oolin oo aanan ka ahayn inay siiyaan dadkan waxa ay dalbanayaan. afduubayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay dadka dilayaan haddii codsigooda loo fulin waayo. kadibna waxaa loo ogolaaday in shidaal loogu shubo diyaaradda, cuntana la siiyo, biyana la siiyo iyo waxa kale ay codsanayaan, laakiinse diyaaradda ay ka wadaan kana kaxeeyaan Imaaraadka, meeshay geynayaan habageeyaane. diyaaraddii waa ay ka soo caga qaaday magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka, kadibna waxa ay soo aaday magaalada Cadan oo ahayd caasimadda Yemenka Koonfureed si ay halkaasi shidaal uga qaadato. Cadan, Yemenka Koonfureed ma aysan rabin in diyaaradda ay ka soo degato waddankeeda, wayna diideen, mana aysan rabin in afduubayaasha hawshooda ay halkan ku fushtaan, laakiinse maadaama diyaaradda aysan shidaal wadanin, markii dambe ayay ka ogolaadeen in diyaaradda ay ka soo degato magaalada Cadan oo caasimad u ahayd Yemenka Koonfureed. markii ay diyaaradda sidaas u soo degtay, ciidamada Yemeniyiinta diyaar ayay ahaayeen oo waxa ay wada joogeen garoonka hareerihiisa. afduubayaashiina waxa ay ogaadeen inaysan halkan hawshooda ku fulin karin oo aysan ku kala bedelan karin maxaabiista ay rabaan in loo soo daayo iyo rakaabka u afduuban. shidaalkoodii ayaa loogu shubay diyaaradda, kadibna duuliyihii diyaaradda hoos ayuu u degay si uu diyaaradda u fiirfiiriyo una indha-indheeyo. duuliyihii diyaaradda waxa uu isku dayay
inuu la hadlo qolada maamusho eraboorka cadan si uu uga dhaadhacsiiyo in ayagoo iskaashanayaan dowladda yemen iyo dowladda jarmalka galbeed inay badbaadiyaan rakaabka meesha saaran, dadka wax afduubtayna ay u fuliyaan waxa ay rabaan. laakiin yementa koonfureed arrinkaasi rajaxumo ayay ka muujisay iyo inaysan waxba ka qaban karaynin. duuliyihiina asigoo niyad jabsan ayaa waxa uu ku soo laabtay diyaaradda. afduubayaashii diyaaradda oo ka shakiyey duuliyaha wakhtiga dheer uu maqnaay iyo inuu sir bixiyey in kale ayaa arrinkii ka xanaaqay oo halkaasi waxa ay ku dileen duuliyihii diyaaradda. kadibna diyaaraddii waxaa waday duuliyihii caawiyihiisa, waxa uuna u soo kaxeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. 17kii Oktoobar 1977 diyaaraddii waxa ay ka soo degtay eraboorka muqdisho oo hadda loo yaqaano eraboorka caalamiga ah ee aadan cadde. waxa ayna dalbadeen afduubayaashii in meesha ugu horeeyo qof matala dowladda jarmalka galbeed. xilligaasi waxaa dalka ka talinayay allaha u naxariistay jenaraal maxamed siyaad barre. soomaaliya xilligaasi waxay ahayd waddan aad u horumarsan, aadna u xoog badan oo aanan marnaba la dhayalsan karin. dhanka kale magaalada Bonn oo ahayd caasimadda jarmalka galbeed, safaaradda soomaaliya ay ku lahayd magaaladaas ayaa maalintaasi waxaa ka socday howlo culus oo u dhexeeya madaxda dowladda jarmalka galbeed iyo diblomaasiyiinta soomaaliya u fadhiya safaaraddaasi jarmalka oo markaasi doonayeen in ay howlgal ka fuliyaan eraboorka iyo dhulka soomaaliya. markaasina ma aysan fududeyn in fasax la-aan dhulka soomaaliya howlgal uu waddan kale ka fusho, maadaama soomaaliya ay ahayd dowlad aad u adag, aadna u culus. arrinka intaas kumuusan ekaan ee dowladda jarmalka galbeed waxa ay soo gaartay magaalada muqdisho, caasimadda soomaaliya. waxaana markaasi la kulmeen allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya jaale maxamed siyaad barre. wadahadal saacado badan socday kadib, siyaad barre waxa uu u sheegay inuu ka soo horjeedo arrinkan argagixisada ay sameynayso. sidaa daraaddeed waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay arrinkan ka howlgalaan oo ay badbaadiyaan rakaabkan diyaaradda saaran. laakiinse dowladda jarmalka galbeed ayaa waxa ay sheegeen in arrinka ayaga ciidamadooda khaaska ah loo daayo, maadaama diyaaradda la afduubtay ay tahay jarmal, rakaabka saaranna ay yihiin jarmal. waxa ayna u sheegeen inay aad ugu mahad celinayaan dowladda soomaaliya. laakiin siyaad barre ayaa waxa uu sheegay inuusan u baahnayn mahadcelin afka ah iyo mahadcelin ubax ah, ee uu u baahan yahay mahadcelin kaash ah. arrinkaas ayaa laisku waafaqay. nimankii diyaaradda afduubtay ayaa waxa ay dalbadeen kuna celceliyeen in loo soo daayo maxaabiista jarmalka ku xiran loona keeno muqdisho, haddii kale ay diyaaradda qarxinayaan. dowladda jarmalka galbeedna arrinkii way waafaqday, laakiinse jarmalka galbeed waxa ay hoos ka soo direen ciidankoodii oo kaalmo ka helayo ciidanka soomaaliyeed. waxa ayna si dhuumasho ah ku soo hoosgaleen qaab aysan dareemi karin dadka diyaaradda afduubtay. si gaadme ah ayaa hal mar waxaa dariishadda looga soo togtay afduubihii diyaaradda. kadibna meeshaasi waxaa ku bilowday dagaalkii u dhexeeyey ciidamada khaaska ah ee jarmalka oo kaalmo ka helayay ciidanka soomaaliyeed iyo afduubayaashii diyaaradda. halkaasina waxaa lagu dilay kaabihii kooxda diyaaradda soo afduubatay iyo 2 kale, waxaana lagu qabtay gabar kooxdii wax afduubatay ka mid ah, waxaana la soo badbaadiyey rakaabkii diyaaradda saarnaa ee jarmalka ahaa. waxaana mahadcelin badan markaasi loo soo jeediyey dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed. dhacdadan ayaa waxa ay tahay taariikh culus oo aan marnaba la hilmaami karin, waxaana laga sameeyey filimaan badan iyo filimaan documentary ah oo taariikhi ah. rakaabkii diyaaradda saarnaa ayaa isla maalintaas waxaa loo soo celiyey magaalada Bonn ee caasimadda jarmalka galbeed ahayd. waa saaxiibkiin axmed kediye oo idiin rajaynayo khayr badan iyo caafimaad. asalaamu calaykum.